daanyeerkan yar ayaa markiiba la kulmay masiir adag markii uu dhashay. boqorka daanyeeradu ayaa gacanta ku qabtay si uu u eego in uu leeyahay karti uu ku dhexli karo boqortooyada. markaas ayuu si cabsi gelin ah ugu dhawaaqay qaylo xoogan. laakiin daanyeerkii yaraa wuu ka xanaaqay, gacantiisana kor ayuu u taagay, wuxuuna hal mar ku dhuftay boqorkii. boqorku qosol ayuu la dhacay, wuxuuna yidhi, tani waa sida dhaxal suge run ah u dhaqmo. laakiin isla wakhtigaas daanyeer duq ah oo bidaaran ayaa keenay ilmo kale oo aad u tabar daran, jir ahaan daciif ah. wuxuu ahaa mataanka walaalka kan xooggan, islamarkaana lahaa xaq sharci ah oo uu ku dhexli karo boqortooyada. boqorkii markuu arkay labada carruur ah, qalbigiisu laba ayuu u kala jabay. saaxirad shar leh ayaa markaas ku qalqaalisay boqorka in uusan marnaba u oggolaan dadka inay arkaan ilmahan daciifka ah, ayna habboon tahay in si qarsoodi ah loo tirtiro. inkasta oo boqorku u naxay, haddana mustaqbalka qabiilka dartii wuxuu qaatay go'aan uu noloshiisa oo dhan ka shalayn doono. wuxuu boqoradii u sheegay in ilmihii daciifka ahaa uu dhintay. kadibna wuxuu amar ku bixiyey in ilmaha la sii daayo, balse daanyeerkii bidaarnaa si qarsoodi ah ayuu ed ugu tuuray buuro dhaadheer. nasiib wanaag, eebbe wuu u hiiliyey. ilmihii yar ayaa bartamaha hawada ku qabtay laamo canab ah. hoosta buurta yey halis ah ayaa ku dhowaaday inuu liqo. yeydii ayaa booday, balse candhuufteeda ayaa ku qabsatay laamaha. ed oo weli ahaa ilmo aan waxba garanayn, wuxuu mooday ciyaar, wuuna u gacan haadiyey yeydii ilaa ay yeydu qaniintay gacantiisa. isla wakhtigaas walaalkiis daacun wuxuu ku jiray xafladdii dhaxalka boqortooyada. ed nasiib buu lahaa, yeydii ma cunin. daanyeer kale oo san weyn oo ahaa nin aamusan oo qabiilku hore u diiday ayaa kor u soo jiiday. markuu arkay gacanta ed oo dhaawacan, wuu u naxay, wuxuuna garabka saartay isagoo gurigiisa u kaxeeyey. sannadihii ayaa si degdeg ah u dhammaaday, edna wuu weynaaday. inkasta oo gacantiisu naafo ahayd, haddana aad buu u caqli badnaa. markuu haraado, caleemo ayuu ka samaysan jiray qalab uu biyo ku cabo. markuu kululaado, caleemo ayuu ka dhigi jiray marawaxad dabaysha u keenta. xitaa wuxuu ka sameeyey xabag dabiici ah walxogeed ah. si kastaba ha ahaatee, gacantiisii dhaawacnayd weligeed ma bogsan, wuxuuna inta badan dhexgelin jiray surwaalkiisa.